ina rooble soo ma hayn warkiisa raba inaan maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor warkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe hadalkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh shariif wuxuu yiri arinta saxiixitaankii memorandum of understanding dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya adiga iyo Cumar Cabdishiraad darawal ka ahaydeen anigu ma ogeyn waxana kama ogeyn ku yiri madax adigu qabyaaladiista hada markaa ma qaadanayo adigana xil waxa dad u doonto waa qaladba ruuxa aad taayaan ognahay shalay waxa lahayd dumarka iyo ragga waa simayina lahayd xadiiska rasuulka ayaad inkirtay yaan ku aaminay adiga intee ku aaminaa anaka saa aragtad markii lagu qabsano waxa soo istaagtay waxa ka dambeeyo ragga filada fadhiyo madaxtooyada ragga fadhiya ka dambeeya leedahay adigu qalad kala wali xataa ku sii dhacdahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديga qaaliga waqti kasta ay ku tahay wanaagsan oo wacan waa markale video kale to aad u xiiso badan fadlan hadad nagu cusub tahay page ka follow leh oo like garay videogan hadu ku soo gaarane si share garay u gudbi dadka kale dadyoga shacabka Soomaalida ah si aan u tusno xaqiiqooyinka saxda ay taagan iyo arinka aan ka hadli doono arinka musharaxiinta ragga u tartamay xilka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa fadlan inaad like garayso videogan siina share garayso sidoo kaleeto rag baa waxay ugu yiraahdeen intaad wadani tahay follow iyo like iyo share ma helaysid waa inaad noqotaa qabiiliste sidaas ayaad ku tagaysaa halka ka laakiin ma aaminsani idinka ayaan ida aaminsanahay Soomaali weyn ayaan aaminsanahay inaan ka heli doono like iyo share iyo followga page kana gaarsiiya follow badan si aan u tusno ama aan u noqono hor u socod dad badan oo jecel in noqdaan wadaniyiin si aan leenkii aan u soo galno ee noogu soo feelaan aan u tusno inaan heli karno dadyo badan oo shacab ah ee ku dambeeyso wadaniyadii aan gudagalno barnaamijkeena waxa miiska noo saaran musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame bal aan aragno sidoo u dhaqmay iqaabka oo yahay iyo wax qabadka oo leeyahay ayaan video kugu soo bandhigi doonaa ila daawo aan gudagalno barnaamijkeena bilaabano yaana ku dheeraanin waxa cad waxay tahay in maanta waxa kala qaybsan ay yihiin ciidankii xoogga dalka kuwoodii qalabka siday kuwoodii diiday inay xildhibaanada jidadka ka xirtaan diiday inay ka qayb galaan caburinta siyaasadeed xilkii laga qaaday loo magacaabay kuwa kale oo la isleeyahay shaqadii ay qaba lahaayeen ama lagu qabsan lahaa ama kuwii hore ay diideen ay qabanayaan horta kuwa loo magacaabay waxaan leeyahay waxa la in rabo waa in la adeegsado shaqo fool xun la in dirsado waan ognahay Soomaaliyay ilaaha aan ka baqno runta ayaan ka hadlaynaa xaqiiqda saxda ayaan ka hadlaynaa ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed ma ahan ciidan qabiil aan runta wallahi idin qarimaayo ciidanka waa ciidan Soomaaliyeed ma ahan rag u dhawaaqayo oo la hadlayo waa ciidan Soomaaliyeed oo ugu yeerayo qabyaalad ugu yeerayo qabiil inuu yiraahdo qabiil hebelaatiin reerkana ka dhalateen reer hebelaatiin lama rabo ninka haduu yahay uu u tartamayo xil madaxweyne waa inuu u hadlaa luqad shacabeed ma ahan luqad qabiilad inuu ku hadlo wuxuu ku hadlayo waa luqad qabiilad ma ahan luqad shacabeed ma ahan luqad Soomaaliyeed ninkaas ayaa raba xil inuu ku tartamo ku soco hay ninka lagu bedelay Saadiq in hadda telefonkiisa Fahad iyo Farmaajo aflaad saaci ayna ninka xil ka haayo waxa u taliyo taliyaal ayuu leeyahay telefonkiisana shaqo kuma leeyahay adiga telefonkiisana lama socotid wuxuu ku hadlayo waa been caadi loo jeedo waay dadka waxaas looma sheego dadka loo sheegana ma nihin qabiil hadoo ku wadona waa loo wada jeedaa qabyaaladuna maskaxda ay ka gashay taasina ma ahan mid meel lagu tago ku soco jiraan oo ay leeyihiin wax kasta anaga ku siinayna aan rabaa inaan la hadlo saraakiisha kale ciidanka ee xoogga dalka oo ugu horeeya taliyaha in uu fahmo
meesha loo socdo inuu fahmaana filaya meesha loo socdo inuu fahmo oo uu kuwaana qaato oo intaysa xeerihii fandhaal dhicin oo farmaajo xil ka qaadin saraakiil badan oo ka qaadi doonaa inay ayaga isgartaan si sharaf iyo karaamo leh ay dadku Soomaaliyay ninka xilkiisu guda waayo oo sida ay tahay u guda waayo xilka waa laga qaadayaa haddii uu qabyaalad bilaabo xilka waa laga qaadayaa haddii uu arrin aan loo baahnayn oo amarkii loogu talagalay mooy amar kale oo ku dhaqaaqo xilka waa laga qaadayaa adigoo musharax ahne lagaalama tashanayo taas ku soo dhex istaagaan oo ay dalkooda ugu hiiliyaan ayagana aan ka rajaynayna farmaajo ani agteyda saaxiibaday raalli iga ahaadaan waa hogaami kooxeed hadalkan hogaami kooxeed aan kuu sheegayaa isla daqiiqado kadib ama saacado kadib wuxuu isku bedelay inuu aag ka galo oo difaac galo wadooyinka xiro dagaal suubiyo aad aragteen shacabka inuu maatidii qaxiyo guryahooda loogu galo la yiraahdo lacagtan qaata ka baxa la yiraahdo manikaas ayaa doonayo shacab inuu isku keeno manikaas ayaa raba xil inuu u tartamo idinka ayaa indii sheegaynaa manikaas ayaa raba xil inuu u tartamo dadna inuu hogaamiyo jecel runta looma baahna in laga lexlexdo runta ayaan sheegaynaa ninkaane uma baahna Soomaaliye qabiil ayaa u baahan qabiilku u baahan haraasado sidaas ayaan la aniga warka uma hayo ku soco sababtoo ah madaxweynaadkiisii waa dhamaaday filla Soomaaliyana asoo hogaami kooxeed uu dhex fadhiyaa filla Soomaaliyana waa la ogyahay hogaami kooxeedii waa dhex fadhi jireen wax cusub maaha ayagoo asaga ka ciidan badan ka qabiil badan ka awood badan dhex fadhi jireen laakiin madaxweyne ma aysan ahaa jirin ayagoo xataa sheeganayo oo ogtiin taariikhda marka annaga hogaami kooxeedan u naqaanaa waxaan u baaqayaa taliyaha booliska ha qabyaaladaynin siyaasadda dan adiga kuuguma jirto dalkana uguma jirto haddaad isku daydo inaad tiraahdo farmaajo qabyaalad ku difaac adigaa foolxumada farmaajo dadka u horseeday waxaan kaaga digayaa inaad siyaasadda qabyaaladayso wuxuu la hadlayo waa taliyaha ciidanka booliska taliya xijaar ayuu wuxuu leeyahay qabiil ninkaas ku taageeraysa qabiil ayaa bahash u wadaa taliya xijaar isku qabiil maan madaxweynaha xaqiiqda runta marka laga hadlo waajibaadkiisa shaqo ayuu gudanayaa adiga xilka amarka ma qaadanayo wuxuu amar ka qaadanayaa madaxweynihiisa qaranka adigoo qabyaaladiista amarka ma qaadanayo adigana xil waxa dad u doonto waa qalad ruuxa aad taayaan ognahay shalay waxaad lahayd dumarka iyo ragga waa simayina lahayd xadiiskii rasuulka ayaad inkirtay yaan ku aaminay adiga intee ku aaminaa anaka saa aragtad markii lagu qabsana waxa soo istaagtay waxa ka dambeeyo ragga filada fadhiyo madaxtooyada ragga fadhiya ka dambeeya leedahay adigoo qalad kala wali xataa ku sii caddahay oo leedahay waxa ka dambeeya filla Soomaaliya ka dambeeysa leedahay masaasa madaxtinimo ku raadinaysa inaad xilki ina qabtaa diidana leedahay masaasa rabtaa dadkina ku hogaamiyay inaad runta ayaan ku sheegaynaa dadka waxaad u sheegtay meesha ma yaalaan waxa dadka kul hortimaadana meesha kuma taalo wallahi musharaxnimo iska dahay waxa u dhow xataa cid kuugu rabta ma lahan dadku isku daalinaysa mooyee aniga diiday waa ninki yiraahdo waay aniga diiday in xilkiina madaxtinimo isku soo sharaxay iga diidan yihiin adigoo qalad galay oo yiraahday naagtii Jarmalka waxay muujisay ragga booskooda gashay waa sax waa gaalo waay maxaa anaka isku keenaysaa gaalo iyo musu isku barbarigaysa ay sheeg waliba ku sii indhacadahay dumarkii ragga waa simayeen isku si wax loogu siiya marka aan leedahay majaahilnimada ay jirta asaa wali waxa si taageerta 25 sano soo baranay baranayso waxbarashada hal bacad lagu soo noqotay qabiilistad noqotay waxaagana qabiil ku soo arurtay filada wuxuu ku fadhiyaa qabiil kuma fadhiyo wuxuu ku imaad aqoontiisa iyo ragtinidiisa ku imaad taas ayaa ka maqan ku tag meesha sidata qabyaalad kuma geynayso hadii qabyaalad qof wax keenayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaanadii ku qabiilka ahay kursigood la riday waxaan u wareejiyeen madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay ku doorteen wax qabadkiisa iyo tayadu leeyahay lagu doortay taasoo kala lagaga baahan yahay ku soco ha qabyaaladaynin annagana nooma fiicna adigana kuma fiicna sidaasoo kale yaan ciidanka la qabyaaladaynin yaan la dhihin kana lama jiro hadalkiisa ayaa isburinayo wuxuu leeyahay ciidanka yaa la qabyaaladaynin ciidankana wuxuu ugu yeerayaa qabyaalad idinka kala saara aniga kala saaray smaba iga lahane idinka kala saara sidoo kale waxaan soo qabanayaa video oo ku inkiraayo badda
asoo weliba xataa badda gatay ila daawa fiidiyowgaan waxaan rabaa inaan su-aal in badan lagu weydiiyo dadku ka dharagsan yihiin inaan dhinac kale kaala fiirsho arrintii MUO-gii memorandum of understanding-kii dhacday marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyey meeqo qof baa goobjoog ahayd marka la saxiixay aniga iyo safiirka Soomaaliya u fadhiyay وفيرس wuxuu wax ka gadaayo oo la fadhiyo waxa waa safiir asagna safiir ma ahayn wasiir ayuu ahay waa aragtaa Soomaal ninkaas ayaa wuxuu naga doonayaa inuu badeena saxiixa ayuu doonayaa wuxuu u baxay oo ninkaas safiirka loo fadhiyo waa badeena inuu biiciyo maxaana loo baahnaa inuu badiisa ilaaliyo ay ahayd ninka wadaniga ah waxa lagu yaqaanaa dalkiisa hal cariyar in laga qaado ma ogolo laakiin ninka qabyaaladista ah wuxuu isku dayayaa xataa ragii oo qabiilka oo ka dhashtaba inuu gada xataa isku dayayaa sababta yaa degan meesha ragii qabiilka ahaa degan ragii waalidku u ahaa degan ehli qaraabaa degan dad Soomaali ayaa degan Soomaali weyn woona gadaay ninkaas ayaa xilniga doonaya anaga ku soco Kenya labadiin wasaaradda arrimaha dibadda ma ogeyd Soomaaliya waa ogeyd wasiirku full inform buu ahaa ma taas kaliya ma aan si fiican kugu sharxo ma waxaan inaan ogaado wasiirku inuu ogaay in kale daas wala rabo wax kan kama rabo ما يد go'aan cabinet-ka hada wasiirka hadda aniga ahaa inuu fadhiyo cabinet-ka ma hubo laakiin go'aan golaha wasiirada inta fadhiistay ka dooday go'aan laga gaaray waaye waa gartay ka bacdi madaxweynaha loo gudbiyay ma wax oo fariiq meesha u socda halkaas ay ahayd adigu waxaad afkaaga ka sheegtay in dawladdu ay ogeed haddana noo sheegaysaa ra'iisul wasaaraha waa ogaa Umar Abdirashiid dawladii iyo golihii wasiirada Sheikh Shariif afkiisa wuxuu ka sheegay inuusan waxba ka ogeyn kalena soconin uusan arag adiga Sheikh Shariif rumooda sheegi kartaa ma aniga waxaan dhageystay taas danba aniga ma ogi laakiin madaxweynaha ay inuu og yahay oo ka jawaabaan dhageystay aniga wuxuu yiri ma idaacada ka dhageystay aniga oo difaacay MOU-ga oo dhahaya sax oo ahaa MOU ma hadlay wuxuu yiri xilligii doorashada on the record haddaan khaldanahay raalgelin aan ka bixiyaan diyaar u ahay Sheikh Shariif wuxuu yiri arrinta saxiixitaankii memorandum of understanding dhex maray Kenya iyo Soomaaliya adiga iyo Umar Abdirashiid darawal ka ahaydeen anigu ma ogeyn waxana kama ogeyn ku yiri madaxweynihii dalku haduusan ogeyn adiga Umar Abdirashiidna aad ogtihiin iyo wasiirka arrimaha dibadda sheegay safiirkii suurta intaas iga keesay ma dhageysan karo nin badeeni gaday badeeni biiciyay waliba inkiraayo leh waan la fadhiistay waa saxiixay rag baa ka soo tashtay asagina saxiixa meesha u dhiilahay maya meesha u dhiilahay ayuu sii ogolaaday Soomaaliyeey meesha wax ka raadinayna waa halka ninka aan wax ka raadinayna waa ninka aan wax ka doonayna waa ninka ka ilaahay aan ka baqno qabyaalada aan iska dayno dalkeena aan ilaalino caradteeda ah in la qaado ma jecli dadteeda in la dhiibo ma jecli ninka ka balsa raali oo ku ahay inuu saxiixo raali uu ahay madaxweyneyga ma ogeyn uu leeyahay asoo wasiir ayuu wuxuu la socon madaxweynihiisa dayacaada digital fiiriya ilaahay idinku dhaashay ninkaas xilniga doonaay video kale waxaan ku soo qabanayaa asoo qabiilka ugu yeeray ila daaw hal mar maanta waa gacan ku dhiigle waa dagaal oogi oo waxay dhihi jireen mujri xarb waxaan maxkamad adduun ahayn iyo cadaalad dalka gudihiisa oo kula macaamilayna maba jirtaba saaki laga bilaabo waa dambiile mudan in marinkiisa la marsiiyo waxa kale oo inta dheer in maleeshiyaadkiisa madaafiicdii ay noo wadeen iyo xabadii ay nagu ridayeen ee garoonka diyaaradaha noo dhaafiyeen dhinaciisa shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka hadlayo waxa waaye oo ku doodayo oo madaxweynaha ku eedeynayo waa khalad oo asagi gala waay waa dhibaato oo gacantiisa ku qeensada waay wuxuu ku qeylinayo waa dhibaato oo ku qeylinayo waay wuxuu doonayo waxay ahayd inuu xabad shacabka ku ridayo ahayd ma ahayn nabad nin wado ninkaas ayaa xil rabo aan dhameysano video reer Muqdisho dad la casii kara maaha dad la handadi kara maaha hore loo cabsi waayay wuu riyoonayaa ina farmaajo hadduu isleeyahay dadkaana cabsi gelinaysa oo ka baqaya mudaharaadka wuu soconayaa ilaa ina farmaajo oo ka baxo xilka oo ka dago hal waxa maanta u fadhiya meesha inaa maqlo ninka sheeganaya ra'iisul wasaaraha
ee xafiiska ku jira ina rooble soo ma ahayn warkiisaan rabaa inaan maqlo waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor warkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe hadalkiisa inaan maqlaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish inaan warkiisa maqlaan rabaa hadday dadkaan matalayaan hadday deegaankaan matalayaan ninkaas arkaysin waad u sacabtumay qabiilka dhahayo reerkaygu hadla dadkaygu soo hadla dadkaygu kaca dadkaygu yeela dadkaygu saan yeela galmudug uu wacay hirshabelle uu wacay gobolka banaadir ayuu wacaya ra'iisul wasaaraha magaciisooba sii gafaba kibir iyo isla weyni ayuu intaas u yeelayaa wuxuu u yeerayaa waa qabiil Soomaaliyay wallahi oo billahi oo tallahi nin noocaasa intuu xil naga raadinayo oo waliba aan leena musharaxa tahay magacaasba aan leena haba oo musharaxnimada aan ku sheegaynaba wallahi intaan wadno hormar ma gaareyno ninkaas oo kale waa ninka jeelka la dhigi jiray la xiri jiray 15 sano xabsi la gali jiray waay dhaqan celin loo suubi jiray waay dhaqan celin u baahan yahay waa say wallahi waraa muqdisho kuma dhalan ninoo muqdisho ugu hanjabaa madaxweyne maxaa Abdullaahi Farmaajo ayuu muqdisho ka xiga ii sheegani noocaas ma muqdisho madaxweynaha ugu xigtaan aan runtii idin sheegnay gabagabadii ayaan soo gaarnay garow alle leedahay waxaan idin sheegayaa inta qabiilka ee qabyaaladu wado ilma adeeraal horta waxba isku maniin taas aniga wadaniyad ama wadannimo ay wax ku raadinayaan ee Soomaalinimo kuma raadiyo wajiga ah qabiil waan ka dhashtay qabiil oo Ilaahay iga dhaliyay reer wanaagsan ayuu iga dhaliyay sharaf iyo ciise ay leeyihiin reer kasta oo Soomaali qabiil ahna sharaf ay leeyihiin Soomaaliyadna Ilaahay sharaf ayuu u yeelay dhamaantan Ilaahana karaameeyo Ilaahana sharfo Ilaahay wadada toosan nagu hanuuniyo inta ay hogaaminayaan ama hogaan naga doonayaan rag badeeni gatay ayna diintu uga faayo marba dumarkii la xantamayo dumarkii caaynayo dumarkii aflagaadeenayo haddii aan rabno inuu xil noo qabto waa wada joognaa inaadar mar kale waxaan leenahay madaxweyne maxaa Abdullaahi Farmaajo inuu soo laabo dad nuucan iyo nuuc ka daran way qarsoon yihiin banaanka ay ka imaan doona insha Allah haduu Ilaahay idmo qabiilna waa ka gudubni qabiil waa mid lagu dhashtay laakiin qabyaalada xun waana ka gudbeynaa insha Allah inta soo socotana inta dhimanne qalbigood Ilaahay ka tiro intaas ayaan kusoo gabagabeynaa fiidiyoona quruxda badnaa oo aan uga hadlaynay ninka musharaxa rabay inuu xilka u tartamo madaxweynaha wuxuu yahay nuucu yahay adiga waa la aragtaa mana ku fogaan mana ku dheeraan waxaa jiro qaladaad badan oo gala laakiin ma rabo inaan ka soo hadlo intaas ayaan kusoo koobay haduu alla dimi insha Allah waa mar kale fiidiyoo kale aad u xiiso badan qeer ayaa idin rajeenayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh